السلام عليكم ورحمة الله. halka kan kliibka waxaan ku duubayaa fariin yar oo igu soo noqnoqotay. Fariintaas oo haddaanu nahay Axmedow oday habarawal baadahay. Habarawal waanahay, habarawalna waa jecelahay, habarawalna wanaag baan la doonayaa. Habarawal wanaageedu inta ugu badan waxay wax ku helaysaa waxa weeye danta dawladu hagar baxda oo danyarta gacan qabata oo waxbarasho siisa ay wax ku helayaan. maaha boqolka af mishaare ilaa qiyaamihii hortaagnaa inay iyagu helaan. habarawal inta badan shaqo ma hayso, waa dad fuqara ah, waa Itaaliyar, waa dad maxaan ku idhaahdaa u baahan tahay ay waxbarasho bilaasha inay helaan, waa dad u baahan caafimaad bilaasha. intaa dadka kalena waa u baahan yihiin. intaa dadkii kuu samayn lahaa baad u baahan tahay. waxaad u baahan tahay dalka waa lagula leeyahay oo inuu wada leenahay, laakiin waxa weeye qof baa ka soo baxaya. qofkaas waa inuu ka soo baxaa taraf ilaa taraf Somaliland madax inoo noqonaya. kii wanaaga qabta ayaa bulshada reerka inta ugu badan reer walba hagaajin kara, laakiin ma hagaajin karo nin inaga ah oo hataa inaga inoo kala abtirinaya. qodob baan idin sheegayaa. madaxweyne Muuse waxa soo baxay laba urur oo habarawala, urur Ciise Muuse iyo urur Sacad Muuse. waxay u soo gudbeen inay tartanka maanta ka qayb galaan. haddii hataa uu Sacad Muuse iyo habarawal aaminsan yahay, labada urur buu dayn lahaa. labadii urur ba isagaa baabiiyey oo ku biiriyey kulmiya. saacaday ka baxeen. waa markan u fakiriyay sida qolada qabiilistayaal sida u fakirayaan baan idin sheegaya inaanay qabyaaladu ay tahay uun la jiifiyaano banaan la isticmaalayo barba sida la doono loo galayo. buu daynin. halkaa wuxuu ku baabiiyey dadkiina qabiilka aaminsanow hankii reerka ayuu god ku riday. isaguna dee xisbiga kulmiye kama aha guddoomiye, waa kaalintii u dambeysay ayuu ku jiraa. macnaheedu waa maxay? macnaheedu waxa weeye habarawal aniga dabadaynta noolahay nin isa soo taagayaanu jirin. magacii reerka ayuu saa u masaxay. idinkuna sacab baad tumaysaan iyo beenbeena. isagoo labadii urur ee habarawal baabiiyey ayuu kula sheegayaa ururadii kale. uu leeyahay habarawale ururadaa u fooda. xagee habarawal markaas ka soo baxaysa? wuu aasi soo maha. doorta haddaba dadka hoggaanka fiican idiin qaban kara. qabiil ha eegin. qabiilku waa kaas. marna markii kii soo baxana la aasaayo, marna lagu leeyahay tallaayaa ree hebelaay ee kooxdayda ku shaqaysanayso. waxay dan inoo ah dowladda cadaalad ku shaqaysa, danta guud horumarisa, caafimaadka, iskuullada, nabadgelyada intaa inooga shaqaysa ayaa dhammaanteen dan inoo ah. wixii habarawal u dana ayaa reer walba u danaa. ilaahay hayna waafajiyo tubta toosan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.